السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتك وحنا عابي تكنولوجيا في انستيتيوت ألا وحنا قبرتنا عشان بيحكي اللغة الصومالية هدي هنا سي تي هدي هنا كونتين هدي هنا إنجليش. ما حسيو إن كورس كيني حسابات كما كويك بوك waxaan maanta isla eegaynaa sida macmiil alaabta badhna aynu kaash ugaga qaadanayno badhna aynu amaah wax ku siinayno. marka koowaad macmiilku wuxuu badhna inaga iibsanayaa kaash badhna uu inaga amaahanaya. laba item baa inoo soo kordhayaa. item la dhaho paymentii oo lacag bixintiiya iyo item la dhaho subtotalkii oo lacagtii ku hadhisay. marka koowaad waxaynu kusoo darsanaynaa labada akoon. waxaynu odhanaynaa item baa tegaysaa edit item may waxaan odhanayaa list item new waxaan halkaa odhanayaa payment oo tagi soo lacag bixintiiya waxaad ku qoranaysaa paymentii deposit to transfer wuxuu ku dirayaa halkaad ka dooranaysaa payment baan leeyahay. okay mid kale aan kusoo darsanayaa new subtotal wadartii guud ku hadhaysay quantity-ga inoo door. waxaan odhanayaa totalka guud okay baan leeyahay. haddaba qofkii aynu hab amaah wax kaga iibino customer creating invoice haddaba customerkii inoo door waxaynu odhanaynaa amare muxuu inaga iibsaday beriis. wuxuu yihi tudanaha habsagsan quantity available inama yeelbiyo beriis. waayi beriiskan dhigita 4 xaba i yaala beriiska ayuu jeedaa. way 4 xabo wuxuu inaga iibsadaa marka 2 xabo oo inagu jooga $30 $60 bay noqonaysaa ma caana uu inaga iibsadayo caanaha imse inoo yaala 16 xabo. way 16 xabo wuxuu inaga iibsaday 4 xabo. totalkii guud muxuu iska bixiyay amare paymentiga halka maxaa laga $120 wuxuu iska bixiyay $20 laba boqol iyo sideetan somaha 80 iska bixiyay. totalkii guud $100 bayna amare ku leen sidaa weeye. eeg marka koowaad wuxuu inaga iibsaday beriis ninka amare la dhahaa midkii wuxuu inagu joogay 3 xabo 2 xabo inaga iibsaday $60 weeye. haddana caano inaga qaatay oo 120 4 xabo inaga iibsaday $30 bay inagu joogeen. payment lacag muxuu iska bixiyay $80. subtotalka aynu ku leenahay hadhaagaahi waa intaa safeani wade. iminka maxaan amare kaga iibinay hab kaashina waynu kaga iibinay oo lacagtii iska bixiyay. habdaynana waynu ku siinay. qof labaad aynu ku darro waxaynu odhanaynaa ubax. haye ubax maxay naga iibsatay ubax waxay naga iibsatay daqiiqda maxay nooga yaala 1 xabo. ka bedel caanaha ka dhig. caanaha maxay noo yaala 12 xabo. waay caanaha waxay naga iibsatay ubax 4 kartoon oo midkii bay nagu shoogo $30 waa $120. maxay kaga naga iibsatay beriiska 6 xaba i yaala ayaa available weyd. haye 6 xaba available. waay 6 xabo waxaan ka iibinay ubax 3 xabo waa isku imisa waa $90. paymentigu haddaba iska bixiyay intuu iska bixiyaynu ka haynaana 110 sooma waa $100. haye subtotalka haddaba aynu ku yeelanaynaa maxay noqonaysaa waa 110. waa 110. iminka caane ayaa waxay naga iibsatay 4 xaba beriisna way naga iibsatay 3 xaba paymentiga iska bixisay waa $100 wadarta guud ku hadhina waa 110. safe close wuxuu u jeedaa credit-ka ubax
loo asteeyey ama limitka loo asteeyey waa 140 kada waxaan odhanayaa clear waxaan odhanayaa inta customerka iisoo dar maxamed baan odhanayaa maxamed muxuu inaga iibsaday bariiska waxaa yaala 6 xabo haa waan ogahay wuu kuu sheegayaa moogti bariiska maxamed wuxuu iga iibsaday 3 xabo oo $90 ah waxaan iga iibsaday caanaha imsa ii yaala 12 xabo waxaan ka iibiyey 2 xabo isagana ka iibiyey waa imsa iyaguna $60 midkiiba 30 buu igu joogaa payment-igu iska bixiyey lacagtu iska bixiyey waxa weeyaan wuxuu iska bixiyey $50 waa in $100 halkaa inoo hadha sabtotalkii inoo soo doorayna totalkii guud waa kan $100 ayaan maxamed ku leenahay marka labada waan iskugu jamcinay wixii naga iibsaday iyo wixii aynu ka siinay uu kaashtay naga iibsaday iyo wixii amaahda ahayd labadii waan iskugu jamcinay marka casharkaas waa sida waxaan u saameynayaa ama dee uu labada akoon u saameynaya waa inventory-gii oo yaraanaya account receivable-kii iyo deyntii oo yaraanaysa iyaduna may account inventory-ga horta uu yaraanaya waynaga dee alaabtan ka iibinay haraagiina $100 weeyaano account receivable-kii ama habkii deynta ahayd ayuu ku kordhaya safe and close baan odhanayaa marka maxaan kusoo ogaanaya report customer receivable balance ninkii maxamed halka aan ku ogaano $100 baan ku leenahay waka haye wuu inoo sheegayaa totalka gudaha maxamed ku leedahay waa $100 waka account receivable buu gelaya inventory-giina way u yaraanaya marka casharkaasina waa sidaa habka customerka ama cash hab amaahna laguga iibinayo iyadoo la isugu jamcinayo hab cash khayr bay idin rajaynaya asxaabta casharkana waa soo sameyn doontaan insha Allah